nabaddu ma aha maqnaanshiyaha colaadda ama duruufo gaara iyo xaalado gaar oo dad gaari ku jiraan waa saqiyam guud iyo dadnimo inta badan ay baahi u qabaan dadka colaadaha la darsay inta badan waxa laga hadlaa oo la bartaa sidee baa nabadda loo dhaliyaa khilaafaadkana looga dhex saaraa bulshooyinka laakiin waxbarashada lafteeda sidee loogu adeegsan karaa inay dhaliso nabad waarta isla markaana bulshooyinku ay noqdaan kuwa ka waantooba colaadaha iyo qalaalaasaha dhexdooda ka dhaca بسم الله الرحمن الرحيم نبض دمانتين بكسو دوادا كلن كلا يتحنهني بوغداك كلن كبوغنا ان كسو قادرنا waxa la yiraahdaa education for sustainable peace and conflict resilient communities waxbarashada oo loo adeegsanayo nabad waarta iyo in bulshooyinka noqdaan kuwa colaadaha ka waantooba buugan waxa qortay qoraaga loo yaqaano Borislava Monachlovic waxaanu soo baxay sanadkii 2018 qoraagu waa kaaliye professor sidoo kale waxay aqoon u leedahay arrimaha xalinta khilaafaadka iyo dhalinta nabad waarta ugu horeyn waxa ay ka waramaysaa oo ay soo bandhigaysaa inay jiraan laba shay oo kala duwan oo ay leedahay marka ugu horeysaba waxna waa learning waxna waa education learning waa barasho oo ah qofku maalinta uu uurka hooyadii galo iyo inta uu nool yahay oo dhan ba waxa weeyaan uu wax baranaya uma baahna markuu qofku learning-ka uu ku jiro curriculum iyo manhaj gaara iyo uma baahna cid gaar ah oo wax barta laakiin education waa ka duwan yahay oo wuxuu u baahan yahay manhaj wuxuu leeyahay waqti cayiman waxaanu ujeedadiisu ay tahay oo qofka baranaya uu og yahay marka inuu wax baranayo oo cid gaar ah iyo waqti gaar ah iyo goor gaar ah wax baranaya marka kay xoog saarsa waxa weeyaan education-ka ama waxbarashada iyo in loo adeegsado inay keento nabad waarta isla markaana ay bulshooyinka ka waaniso in ay colaado mar labaad dib u aloosaan waxay leedahay colaadaha guud ahaan dunida taagan waxa sal u ah aragtida inaga iyo iyaga ama anaga iyo iyaga aragtidaasi waa aragtida u arkaysa koox waliba kooxda kale inay daalimin yihiin inay gardaran yihiin inay tahay in la iska celiyo inay xuquuqdoodii qaateen inay mudan yihiin markaasi in la dagaalamo oo la iska celiyo sidoo kale kooxda kalena inta in la mid ay kooxda kale ka aaminsan tahay waxay leedahay marka hadii aan doonayno in la helo nabad waarta iyo in bulshooyinku ay noqdaan kuwo xasiloon waa in aragtidaas inaga iyo iyagada meesha laga saaro sida looga saari karana waxay leedahay manhajka waxbarashada iyo curriculumku wuxuu door weyn ka qaadan karaa in arintaasi meesha laga saaro waxay leedahay waxa jira taariikh ilmaha loogu sheego gurigiisa oo waalidkiisu ay uga waramaan sidoo kale waxa jirta taariikh kale oo lagaga warramo dugsiga oo wax loo dhigo iyo taariikh kale oo bulshada mararka qaar laga helo oo saddexdaasba ay kala duwan yihiin ilmaha wax baranaya marka arintaasi waxay ku keentaa in identity-giisa ama sumadiisa uu shaki ka galo inuu garan waayo markaas keeba saxa keeba khaldan maadaama taariikhaha kala duwan ay mar walba maskaxdiisa ay ku soo dhacayaan cid kala duwan ay u sheegayaan mararka qaar waxa dhibaato ay qabsataa bay leedahay macallimiinta qaarkood oo su'aalaha ku saabsan sooyaalka mararka qaar ka jawaabi kari waayay ardayda ay weydiiyaan waayo manhajka iskuulka ilmaha loogu dhigayo ama dugsiga macallinkaasi dhigaya mararka qaar waa manhaj arrimo badan aan ka hadli karin oo ku saabsan sooyaalkii la soo maray isla markaana looga cabsi qabay markaa in dib sooyaalka laftiisii hadii la faqfaqo ama laga warramo maadaama isku si loo arkeen ay colaado badan ka aloosmi karaan arintaas macallimiintana dib bay ku tahay ardaydana dib bay ku tahay nabadda ay bulshadaasi haysato ee curdanka ahna dhibaatay ku tahay marka waxay leedahay sooyaalka hadii aan isku si loo arkeen oo labadii dhinac ee istilay aan isku si u arkeen nabadda ay heleen marnaba ma noqon karto nabad waarta marna ma noqon karto nabad cagaada ku taagan bulshooyinkaasina waxay halis ugu jiraan mar labaad inay colaada ka dhex qarxaan waxay leedahay marka waa in la diyaariyo oo manhajka waxbarashada ee ilmaha lagu baraya uu noqdo manhaj waxbarasho oo dhinacyada anaga iyo iyaga as versus them labadaba taariikho ay wada akhrisan karaan oo mideynaya oo xaqiiqo ku salaysan oo isku si taariikhdii loo arkayo waa in la sameeyo waxay ka waramaysaa tusaale soo qaadanaysaa Faransiiska iyo Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka aragtida ay ka kala leeyihiin ba waxay dooneen 2007 inay sameystaan manhaj mideynaya aragtida dalka Faransiiska iyo dalka Jarmalku ay ka qabaan dagaalkii labaad ee adduunka iyo dhacdooyinkiisii dhacay si markaa dhalinyaradooda ay u baraan wixii dhacay wuxuu ahaa isla markaana ay kor ugu qaadaan
xiriirka labada dal isla markaana ay ku weyneynayaan Yurubnimada ama wax isku haanshaha labada dal waxay soo dirteen marka labada dhinacba 10 khubro oo sooyaalka mid waliba aqoon uu leeyahay 10 khubro isku yimi taariikhda marka 80% markii ay doodeen ay isla rogrogeen iyagoo marka mid waliba halkii uu ka yimi uu matalayo 80% waa isla garteen taariikhdii waxay ku kala duwanaadeen oo kaliya 20% tusaale ahaan aragtida communism-ka 1950 ilaa 60-meeyadii Francisco wuxuu arkay inay tahay xilli kamid ah xilliyadii uu Francisco ugu wanaagsanaa ilbaxnimo horlehna uu keenay isla markaana uu ku talaabsaday qaybna ka marka horumarka weyn ee uu gaaray dalka Francisco laakiin Jarmalku aragtidaas oo kale waxay u arkayeen in ay ku xiriirsan tahay nidaamkii Soviet-ka ee Jarmalka labada u qaybiyay ee qayb kamid ah ama bariga Jarmalkana oo nidaamka Soviet-ki uu ku maamulayay waxyaalaha kale ee ku kala duwanaadeen waxa kamid ah 20% kamid ahaa sida uu arkayeen faragelintii Mareykanka dagaalkaas Yurub uu ku farageliyay Francisco waxay u arkayeen in uu ahaa faragelin khalada isla markaana Mareykanku uu awood balaarsi iyo maamul waxa weeyaan aanu gaari karin uu rabay inuu Yurub ku maamulo halka Jarmalku uu arkayeen inuu ahaa taageero uu Mareykanku u fuliyay si marka uga soo kabtaan colaadihii dhexgalay marka 20% mooy 80% kaasoo kale oo dhan wax la isku waafaqsan yahay taasina waxay keenaysaa beeleeda marka in meesha uu ka baxo taariikhihii kala duwanaa ee annaga iyo iyaga ee laga yaabay marka inay keeni karaan colaadaha inay horiyaan waxaan door weyn ka qaadan karaa beeleedahay manhajka waxbarashada waxyaalaha kale xiisaha leh ay ka hadlayso waxa kamid ah ku soo bandhigaysa buugan qoraago doorka fanka iyo farshaxanka ama artka waxa la yiraahdo uu ku yeelanayo in markaasi colaadaha laga heshiiyo nabad la helayana ay noqoto nabad caga adag ku taagan oo labada dhinacba waxa weeyaan ay adkaato ama aanay suurto galinba in dib ay colaado uga dhex qarxi karaan waxay leedahay farshaxankaasi wuxuu keenayaa bulshooyinka in la isu keeno maadaama bulshooyinka cid waliba taariikh gaar ah haysata in la isu keeno meel la wada fadhiisiyo oo cid waliba marka bal dagaaladii ay soo mareen iyo colaadihii labada dhinac ka dhex maray qaab farshaxana qaab suugaana heeso hal abuur kala duwan masraxiyado inay ku soo bandhigaan sida uu arkayeen dhibaatadii uu geystay iyo wixii waxa weeyaan xaaladda markii ay ku sugnaayeen ay dareemayeen ay qolada kale ka dareemayeen qoladii kale oo fadhida marka qolada kalena sidaas lamada iyaguna inta in lamada ay soo barsan gareeyaan ama ay soo bandhigaan waxay keenaysaa marka waxay leedahay labadii aragtiyood qof waliba halkiisa uu ku xidhnaa ee uu aragti annaga iyo iyagadii aaminsanaa marka ay isu yimaadaan ee wax wada wadaagaan ee wada sheekaystaan in labadii aragtiyood qof waliba qofka kale uu dareemo qof waliba qofka kale uu ogaado dhibtii kan uu haystay kan lamida inay haysato faham guud ay ka wada yeelan karaan colaadii soo martay isla markaana aanay u arkin taariikhdii soo martay in cid gaar ah ay ku faa'iiday ama cid gaar ah laga faa'iideystay waxay ka waramaysaa qoraagu ay soo bandhigaysaa doorka ay ku yeelanayaan bulshadu macallimiinta iyo ardayda oo kaliya ma laakiin bulshada lafteeda doorka ay ku yeelanayaan in nabaddu ay noqoto nabad waarta doorka ay tahay in dawladaha ay ku yeeshaan inay maalgeliyaan oo lacag wax weeyaan miisaaniyad adag ay u meel dhigaan sidii waxbarashada marka loo hirgelin lahaa sidoo kale waxay ka waramaysaa doorka haweenku ay ka qaadan karaan iyaga lafteeda waxbarashada marka la barayo iyo in bulshooyinka laftoodu ay helaan nabad waarta iyo xasilooni la isku haleyn karo مواضيع kale oo aad u kala duwan bay ka hadlaysaa runtii oo xiiso badan oo ku dul wareegaya guud ahaan waxbarashada iyo doorka ay ka qaadan karto in la helo nabad waarta iyo bulshooyinku ka waantoobaan colaadaha waa buug runtii xiiso badan qof wala akhriyo karana aan kula talin lahaa inuu akhriyo buugga kan ku xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag waa adduun wadaag hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books. Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan, buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare, agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali, Ingiriisi iyo Carabiba. Soo buuqo Hema Books oo baahitir maskaxdaada.